diyaarad aan fasax ka haysanin wasaaradda duulista hawada Puntland inaanay ku soo degi karin meesha la yiraahdo Buuhoodle haba yaraatee. aan gudagale maamulka Puntland ayaa sharaxaad ka bixiyay sababta diyaarad kuwa gargaarka ah oo u socotay magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn ay dawladda Puntland ugu khasabtay inay ka degto magaalada Garowe. diyaaradan oo ay la socdeen samafalayaal ajaanib ah oo Mareykan u badan ayaa markii ay soo degtay kadib waxaa samafalayaasha la socday garoonka diyaaradaha ee magaalada Garowe kula kulmay madaxweyne ku-xigeenka Puntland iyadoo markii dambena diyaaradaas loo fasaxay inay magaalada Buuhoodle u duusho. haddaba madaxweyne ku-xigeenka Puntland injineer Cabdixakiin Xaaji Cumar Camay ayaa arintaas raadiyo Daljir uga warramay. waftigu markiisii hore wuxuu ahaa wafti runtii si qaldan u soo maray meesh wuxuu doonayay bilaa sharci inay ku soo galaan dalka Puntland ku soo galaan Buuhoodle ku soo degaan dabadeetana annagoo isticmaalayna dhinaca wasaaradda duulista hawada Puntland ayaan nidhi waa in la hubiyo ciday u socdaan waxay u socdaan meesha ay ka yimaadeen. nimankaasi waxay ahaayeen 8 xubnood ahaayeen 7 ka mid ah Mareykan bay ahayd ninka kalena Australian reer Sydney magaalada la yiraahdo ayuu ka yimi. dabadeedna markii يعني arrintaas saa u dhacday waa la la joojiyay diyaaradii markii la joojiyayna wada hadalba iyagii noo bilaabmay waxayna ii sheegeen si qaldan in wax loogu sheegay oo nin u sheegay inuu Buuhoodle xukumo taasina ay beenowday hadday waxaa qasab nagu ah inaanu nimaadno cidda meesha xukunta aragna marka hore iridka laga gelay ay noqoto marka haddii dawladuna fasaxaysana ay noqoto goor ma ogaateen seefse diyaaradda ku soo dejiseen ma intaysan soo duulin baad ogaateen oo ay khasab noqotay inay Garowe ku soo hormarto mise iyada hawada ku jirtaad ogaateen oo baltaa sharaxaad yar naga sii inta aanay soo duulin baan ogaanay markii aan ogaanayna immediately waxaan la xiriiray wasiirka duulista hawada iyo agaasimaha guud wasaaradda habkii iyaga yaqaanay oo la xiriiray sababtu tahay ninka xiriirinaya Soomaaliga baa yaqaanay aanu naqaanay kaas baa la xiriiray kiiba marka xiriid sameeyay يعني in connection kii iyo wada hadalkii uu bilaabmo marka aniga personally waa isoo waceen waan wacay dabadeedna iyagiiba telefoonka leeygu diiday waxay ahaayeen baan weydiiyey waxay ii sheegeen inay si qaldan ku yimaadeen mar haddii aanu Mareykanka ka nimina annagoo u soconay inaanu ummadda Soomaaliyeed wax taro inaanu meeshii ka noqonaa suurtagal maaha annaguna waanu arkanay inay taasi runtii sax tahay inaanay ahayn qof ummadda Soomaaliyeed taageeraya ama caawinaya ama runtii ka gubtay baahida iyo dhibta haysatay in dib loo celiyo marnaba inay xaraan tahay laakiin marka waxa isla garateen in Buuhoodle ay Puntland tahay sida daraadeed si Puntland ay u hubiso diyaaradaasi waxay sido ay Garowe ku soo hormarto yes hawada Buuhoodle Puntland baa xukunta waa hawo Soomaaliyeed weeye diyaaradda imanaysa diyaarad Ethiopian oo la soo kareystay ahayd Buuhoodlana dejin karta kana duulin karta waa ka waraysaa diyaarad hore oo aanan ogolayn inaan u diidnayna meesha cid ka qaado haddii aanan ogolayna cid ku degi kartaa ma jirto imikana waan leeyahay hadhowna waan leeyahay qof kasta oo ku soo degaya Buuhoodle waa inuu ka haystaa wasaaradda duulista hawada ee Puntland uu amar ka haystaa iyo fasax laakiin mudan Camay haddaan si kale ku weydiiyo Buuhoodle oo kale waxaan ka warqabnaa waxa la yiraahdo Khaatuma waa joogtaa waxa la yiraahdo Puntland waa joogtaa Somaliland waa joogtaa baa la yiraahdaa marka ma la oran karaa Puntland waxay siyaasadeynaysaa arrimihii gargaarka loogu talagalay in dadka tabaalaysan iyo dadka dhimanaya abaartii cudurro isugu darsameen loogu gargaaro dadka ajnabiga ay sameynayeen boorta siyaasadeynta iyo waxa kala socda security-ga imika ka war haysa dalka guud ahaan ummadda Soomaaliyeed dhibaatada haysataa waa amni darro qof aadan garanayn waxa uu yahay cidda uu socdo يعني wuxuu yahay wuxuu la socdo يعني marnaba looma ogolaado يعني inuu dalka soo galo waxa ka socda Mareykanka Donald Trump dadkii wuxuu ka dajiyay kombiyuutarradii ka dajiyay marka in aan security-ga dalka iyo dadka yaga ilaalino waa waajibaad nasaaran oo aan u dhaaranay marka ugu horeyso weynaan ognahay
cidda imanaysaa meesha waxay u socoto mar walba ma siyaasadeynayno inaanan siyaasadeynayn waxaan ku caddaynaya markii aanu ogaanay inay yihiin dad yacni gurmad u socda inaanu sii daynay oo permissionkii siinay oo tviyada iyo idaacadahaba ka sheegnay inay fasaxan yihiin oo meeshay degaan ku degi karaan markay imika degaanna way tegayaan dibna way usoo noqonayaan sida aanu ku wada hadalnay laakiin waxaan kuu sheegayaa oo ka caddaynaya tvgana ka idhi tviyada ka idhi tv kalimaha 3-4 tv baa joogay cid gaaray u socotay inaanay jirin rag baa sheeganayay hadday sheeganayaan way soo dejin lahaayeen marka maadaama iyagu aanay soo dejinna karin kicinna karin waxa weeyaan kuwa qaadanayaa permissionka waa kuwa sidaas sameeyey in lala socdo oo diyaarad aan fasax ka haysanin wasaaradda duulista hawada Puntland inaanay kusoo degi karin meesha la yidhahdo Buuhoodle haba yaraatee